بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo dhaweynaa koorsada computer application barashada MS Word 2010 maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay page number sida loo sameeyo page documentigaada wuxuu ka koobnaan doonaa pages badan so page number waxaa loo baahdaa markii documentigaada uu ka bato one page markii uu ka bato iyo muhiimta in la xisaabiyo page numbers so page number documentiga page walba si number loogu sameeyo oo si xiga oo continuous ah waxaan samaysanayna pages badan runtii so erey badan aan soo gelinayna xarfo badan so pages badan oo samaysan hadda pages badan oo samaysan so hore waxaan ogaan page kan numbers inta page oo yahay soo ogaan oo 23 page waaye so 23 page numbers ka inta badan oo meeshaas ugu hooseysay lagu soo qoraa meesha ugu sarreysana waa lagu qori karaa so page number qaabkee loo sameeyaa marka page number si aan u sameyno oo number aan u yeelno pageskeena hadeena tagayna insert tabka loo yaqaano insert tagayna insert oo ku doorayaan kadib groupkan loo yaqaano header footer iyo ka dooranayna page number so intaan option oo leeyahay marka in qaybta sare oo top of the page ina u sameyno qaab noocan oo kale iyo bottom of the page ina u sameyno oo qaab noocan oo kale means dhanka midig bidix dhaxda iyo inta badan inta la isticmaalo hadii top qaybta kore aad ku sameynaysid waa meesha qaybtan kore hadii aad ku sameynaysid top of the page asoo ah inta mar ku sameysma mar dhaxda ku sameysma marna ingiriiska ku sameysma kaasas loo jeedaa si la mid ah bottonka page numbers kan ku hore sameysana isticmaal kara page numbers so inta badan waxaa la isticmaali karaa labada marka bottom top of the page iyo bottom of the page waxaan aad u sii fiican bottom of the page so bottom of the page wuxuu ku siinaa three main options kan ku siinaa option kood waxa waaye in qaybta hoose bidixdeeda oo ka soo muuqdo numberka iyo dhaxdina oo ka soo muuqdo iyo geeskiina oo ka soo muuqdo okay inta badan waxaa isticmaalaa marka dhaxdina ka soo muuqdo dooranayna so pagekeena wuxuu ka soo muuqday qaybta hoose ee haddana dhaxda okay qaybta hoose oo dhaxda waxaan samayn karaa bedeli karaa qaybta hoose oo geeskan kale ka soo muuqanaa kana geeska so dhinaca arta samayn kartaa so pagekan kana page koowaad waaye hoos soo soco falaart ka socod pageka labaad waaye hoos soco pageka saddexaad waaye afraad waaye hadaan 23 page oo ka kooban yahay falaart inta ka soo sikanayna waxa leena page ugu dambeeyo maxaa waaye waa 23 page waaye 23 page halkaas loo sameeyaa hadii aan marka formatka oo page-kina wax ka bedelno isla meesha ku laabanayna insert page number leena meesha ugu hooseyso meesha koreysa waxa ku qornayna format page number ku dhufanayna so boxkan ku soo baxayo boxkan waxa ka dooranaysaa formatka oo noqonayo page number ka tusaale ahaan number of format waxa kamid ah ina isticaada anaga waxaan isticmaalnaa 1 2 3 up to numbers kana shaqeeyeen pageska waxaan isticmaali kartaa -1 -2 -3 isticmaali kartaa dadka carabiga isticmaalo abjad a ba ta ama abjad oo a ba ja iyo abc isticmaali kartaa abc oo waaweyn isticmaali kartaa greek isticmaali kartaa greek yar greek waaweyn isticmaali kartaa mid kamid ah lagu dhufo formatka si ogaano kadib aan leenahay okay so formatka waxaan qana 1 oo ah Greek 2 oo Greek 3 oo Greek 4 oo Greek so 23 indho qaabkan ay noqonaysaa 23 so ereyda Greek marka la isticmaalayo so page number intaas oo nooc u sameyn kartaa in hadii qaybta sare ka sameeyeen qaybta sare ka sameysma ilaa formatka noo door labada xabo ka sameyn kartaa hadii aan rabo marka in aan iska cancelo iska format gareeyo علينا remove page number done remove so page number adartina ku soo dirtid insert inaan dhaadi kadibna page number aad dirtid hadda remove leeyahay isla meesha la ka bedeshay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh